mudnaanta hal la siiyo ilaalinta dadka naafada ee ku nool Somaliland ma helaan ilaalin dheeraad ah waxayna fawq kala kulmaan bulshada qaybaheeda kala duwan warbixintan waxaynu ku eegaynaa dhibaatada ay kala kulmaan dhismayaasha dhaadheer ee dabaqyada ah waxaan ahay guriga naafa problem baan ahay xafada October ku noolahay wallahi bulshada caqabad baan uga kulmaa sida imka dhismayaasha maartay faqado ka migan sadan soo waxbarta jaamacada gaar maartay sanad migan sax de kurkarmeeno wana kurkareen inaanu isna xafiiskii galay askarigii intii ila socotayba uu sii daay anigu naafaan hayo joog buuri joog adigu meeshan waa fooq dheer ma kori kartid hanagu jabine halka taagno anagu waxaan nahay afar nooc Curyaamin walaalaha isku baha ka waxaan nagu dhibaato oo kale wadooyinka markaan marayno kale idinama gacan qabato idinama tixgeliso baabuurtii kale wana dhibayaan dadka kale curyaankooda way wada ciiseeyaan in curyaaminta hoos loo eego weeyaan naafadu waxay qayb ka yihiin bulshada waxayna sheegeen inay dareemayaan walwal iyo niyad jab iyagoona ku andacoonaya inaan la siin wax fursad ah taas oo sababta caqabad aan bulshada kale la dareemaynin wallahi caqabad weyn u hayaan dhismo aan fuul karano wadana ka soo fara lagu sidoo riixayo marka waxaan wahay wallahi dabaqeer dheer waxaan ugu hayaan dhibaato wallahi aad u baahsan marka in loo sameeyo meel yar hoose naafada oo ay isugu yimaadaan oo ku kulmaan oo martay teel marka loo baahayay in la isugu yimaado meel bay baahan yihiin aduun dheereen oo aad ugu kabano afaqo matreer in laga daayo ayaan codsanaa wax barasho waan u baahanahay caafimaad loo baahan yahay dalba kurooyay shaqo abuur oo u baahanay marka hadii maskaxdeedu waa caadi wax kuma qabno dalba kurooyay miirkayga iimaankayga ugu jooga marka wax barasho waan u baahanahay dalba kurooyay baabuur ma haystaan wax barashadii lagu geeyo laga soo qado doonayna isaga reebaan hay qoyskoodii oo afar inoo isku baha isku qoysa de markaan ma kira kama gacan qaba lahayn ma u shaqeyn lahaa ayaan ka bindahay marka wax barasho iyada qudheed u baahan oo baabuur tan haysan nageeyo marka hore nageeyo ka bacdi naga soo qaada waan u baahanahay iminka anigu muddoonka 10 sano bil bay ugu jirtaa dhaqaalaha iska saarno waan waayay waxaan ku 10 sano ugu jirtaa kharashna waan waayay iska saaro marka marka nin ma socdo meelaha marood adigu waa jabnay kan jabay ayaan la kii waayay marka bulshada waxaan leenahay ama kaga duwanahay waxaan leenahay baahiyo gaar ah oo noo gaara maadaama aan anagu dad aan lahadan lahayn oo kori kareen kaabadiyo kale ka waxaan nagu dhibaato oo kale wadooyinka markaan marayno kale idinama gacan qabato idinama tixgeliso baabuurtii kale wana dhibayaan oo bulshadu ilna xariiso ma eegto in xaqii waxbarashadii oo kale waxbarashadana ma helo barashada asaasiga ma helo caafimaad ma helo haddana wax bartana meel walba waxaan hortaagan caqabad kaabad baan hortaagan marka dadka kale curyaankooda way wada ciiseeyaan in curyaaminta hoos loo eego weeyaan imkaanu iskuulkii waan ka fadhiistay de marka inaan ka fadhiisto muddo wax barashada in heer caalami ka garan doonaya heer jaamacad ka garan doonaya de marka xoogna ma haysan wanaga iska naafada de marka waxaan doonayaa inaan barashada doonaya marka in daga gacan qabto cidiga naga gacan qorkaysa in daga gacan qabto man doonina marka naafada barigan nahay waan ku codeynay codkayga waan siinay marka madaxeena soo hoos noo madax dadka naafada ahi ma yihiin kuwa ka seexday sidii ay u raadsan lahaayeen xuquuqda ka maqan waxay sameysteen ururo ay ku midaysan yihiin waxayna sameeyaan galaangal joogto ah oo ku wajahan dawladooda hay'adaha taageero iyo cid kasta oo ay naawilayaan inay wax ka qaban karto baahidooda gudoomiyaha ururka naafada gobolka Togdheer Safiya Maxamed Cabdi ayaa ka waramaysa caqabadahaasi ku xeeran anigoo ah gudoomiyaha gobolka Togdheer ee naafada dadkan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xoog iyo xoolahaba isugu daray maxay ahayday Soomaaliland fooqyada ka dhisanayaan waxaanu leenahay haloo sameeyo halkii dadka naafada ah ee curyaaminta ay ka gali lahaayeen in loo sameeyo taasna waan ka codsanaa waa la soo weydiiyay waxa la shaqo qarantii naafada adiga ka mas'uul ma haysa cid shaqo qaranta lagu daro waan waayay wax jaamacada shahaadad jaamacadeed sita waan ka dhex waayay dadkii naafada ahaa hadda waxaanu soo booqanay oo u tagnay in yaroo 18 sano jiro 20 ku buuxsamin iskuulkiisii ayd kaga hadhay iskuulkii baa ka fogaaday wax geeyo oo ka soo celiya wuu waayay hanti uu gaadho ku kiraysto oo kaga soo noqdana ma haysto marka halkaas uu cidlu ku ayaa wuxuu leeyahay waxbarashadii waan u baahanahay sidee baan u dhaqaajiyaa anna ma gaadhayo waan dhacayaa oo ma socon karo Cabdiraxmaan Trike telefishinka Horyaale magaalada Burco